الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحان كبريا كلن كان نكدغ كلن بركيسن allana سبحانه وتعالى naxariistiisa uu ku soo dejiyo. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa carabkayga iyo qalbigayga inuu ku sugo kelimada xaq ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsan. aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab. intaa kadib walaalayaal, kelimada la iga codsaday inaan ka hadlo galabta waxa weeye sida aad ku aragteen jadwalka waa xaaladda Soomaaliya. xaaladda Soomaaliya waxay qayb ka tahay xaaladaha caalamka islaami ka dhacaya. marka insha Allah taala waxaan ka hadli doonaa أولاً مبادئ أساسية أو هرت فهمك وحلقوا فهميه سيدا وحا قضية أنت ألا فهمين أساسك لقوا فهم لها وإن وحلقات المامو أساسك قضية لقوا فهم لها وإن وحلقات المامو مد اللباد وحويه إنان دول مرنو أسبابها كينية دباتوين كان كدعية أما هنقطه dalkeena ama ha noqoto dalalka islaamka dhibaatooyinkan hadda jira waxyaalaha asbaabaha u noqon kara iyo shariicada islaamku waxay u dejisay arrimahaas oo kale marka ay yimaadaan, ama ha noqoto dhibaatooyinka hadda caalamka islaami meelo badan ka socdo oo inala mid ah ama wadadeennii oo kaleeto ku socota sida hadda waxa ka dhacaya wadamo badan oo dhulalka muslimiinta carabta ah. qaabkii looga bixi lahaa ama qaabka shariicada islaamku ay u dejisay dhibaatooyinkaas oo kale markay yimaadaan in looga baxo. waxa kaleeto oo iyana mudan inaan wax ka tilmaamno asbaabaha keenaya arrimahan oo kale, xaaladahan oo kale waxa keenay in asbaabteeda iyadana aynu tilmaano. sidaas oo kale raadka ay ku leedahay bulshada iyo mujtamaca muslimka ah dhibaatada markay saa u dhacdo inaynu iyadana wax ka tilmaano intii waqtigu insha Allah taala uu inooga ogolaado. awalan ugu horeyn mabaadi'da haddii aan ogolo waxa weeye wax kasta oo horta koonkan ka dhacaya sida aynu nagu dadka muslimiinta nahay aaminsanahay tiir waxa jira kamid ah iimaanka tiirarka aynu rumaysanahay oo ah wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. muxuu macnaynayaa? wuxuu macnaynayaa wax kasta oo koonkan iyo adduunkan ka dhacaya waa biqadar ilaahi, qadar ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo mashiicadiisa ku dhacayaan. marka wixii khayr ahna waxaa la rabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu shukriyo. wixii dhibaato ah oo yimaadana in ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu sabro. haddii adigu aadan sabab ku lahayn iyo haddaad sabab ku leedahayba, haddii aadan sabab ku lahayna waxa weeye inaad ku sabarto qadarta ilaahay. haddii aad asbaabta wax ku leedahayna inaad raadiso sidaad uga bixi lahayd ayaa waajib ah oo sabirka la socota. arrinka labaad waxa weeye mabaadi'dan ka mid ah sababta ugu weyn markaynu qadarta saa u rumayno wax walba in qadar ilaahay ku dhacayaan. sababta ugu weyn dhib kasta oo inu dhacaya ama musiibo kasta oo ina asiibaysa dibadda ma aha ee waa gudaheenna innaga way. islaamkuna shareecadu taasayna baraysaa. waxayna baraysaa in waxa idinku dhacaya sababtoodu ay tahay idinku wax idinka yimi inay tahay sababta. taasna laba aayadood baan u soo qaadanaynaa. aayadda koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum. ma dhihin waa wax dad kale idinku sameeyeen, dadka kale farac bay ka tahay. waxa weeye wax gacantiinu kasabtay wey. marka waa gudihiin idinka idinku isweydiiye
dhibaato ma idinku dhacday ma abaara idinku dhacday idinku iswarsada ma colaad baa idinku dhacday iyo dil idinku iswarsada ma dalla'aan baa idinku dhacday dhul la'aan idinku isweydiiye ma dagaallo iyo thawraat iyo xurub baa idinku dhacday isweydiiye wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir aayadda labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy awalama asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana haada dhibaata markay idinku dhacday aad idinku mid lamida geysateen horay ayaad isweydiinaysaan war annaga muslimiin baan nahay ilaahay baan rumaynay ummaddii nebi maxamed calayhi salaam baan nahay sidee gaalo nooga adkaatay sidee dhibaato naloo gaarsiiyey sidee naloo ka adkaaday ayaad isweydiinaysaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaabtii ma rabtaan qul waxaad ku tidhaahdaan nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam huwa min cindi anfusikum lama dhihin aayaddaasi waxay soo degtay qaswatu uxud markii ay dhacday ee muslimiinta 70 asxaabtii ah laga dilay ee nebiga calayhi salaam la dhaawacay ee muslimiintii ay jabeen ayaa muslimiintu isweydiiyeen war waa nimankanu miyaanay mushrikiin gaalo ahayn miyaynan inagu muslimiin ahayn miyaan nebiga calayhi salaam ina dul joogin sidee gaaladu inooga adkaatay oo dhibkanu inoo soo gaaray aayaddu saasuu ilaahay ku soo dejiyey sababteeda war ma arrinkaasaa isweydiinaysaan haa sababtiisu waxay tahay haa min cindi anfusikum idinkaa u sababah buu yidhi ilaahay ma dhihin ilaahay quraysh ayaa waxaa idin yeeshay khaalid ibn alwaliid ayaa intuu dhabarjabin sameeyey buurtii ka soo tallaabay yuu muslimiintii eber ka dhigay eedda ma saarin ilaahay subxaanahu wa tacaala quraysh ee wuxuu yidhi qul huwa min cindi anfusikum aayad saddexaad oo isla qaswati uxud ku soo degtay muslimiinta oo arrinkaa aad isu weydiinayo murugo ay gelisay war annagoo muslimiina see gaalo noo qabsatay see gaalo noo dishay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi walaqad sadaqakum allahu wacdahu ilaahay ballantii uu idiin qaaday waa idiin gargaaraya waa idiin oofiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi waa idinkii gaalada laynayay oo dilayey ilaan qaybtii hore ee dagaalka uxud muslimiintu iyagaa naka dhigay gaalada way jabiyeen id taxusuunahum biidnihi xataa ilaa goorma ayay idiin socotay guushaasu waxay idiin socotay ilaahay idin siiyey ilaa aad idinku fashilanteen baa la yidhi hadalka ayaa lagula hadlayaa aad fashilanteen la leeyahay soomaalidu maanta ma ogolaan karto ama qolo kasta oo muslimiinta ka mida ama libiya ha ahaadaan ama suuriya ha ahaadaan ama yeman ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaane in la yidhaahdo waxa idinku dhacaya waa fashilkiina idinka ma ogola waxay odhanayaan maraykan iyo yurub iyo jabaan iyo ingiriis iyo saar halkaa u tur dadkaasaa na haysta ilaahay ma dhihin saas qoraysh baa idinku samaysa wuxuu yidhi xataa idaa fashiltum dadka maanta iyaga lababa odhan karo waa fashilanteen xisbi la odhan karo ama dawlad la odhan karo waad fashilantay maba jirto laakiin ilaahay qur'aanka muslimiintii saxaabadii buu ku yidhi xataa idaa fashiltum kow watanaasactum fi lamri oo aad isqabqabsateen oo arrinka isku khilaafteen tanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibbuun oo aad caasideen ilaahay iyo rasuulkiisa amarkoodii aad jebiseen minkum man yuriidu اdunyaa waxaa idinku jira qaar adduunyo doonaya wa minkum man yuriidu alaakhira qaar kaloo idinka midna aakhiray rabaan uma sarafa allahu cankum liyabtaliyakum kadib baa ilaahay subxaana wa tacaala idinkoo intaas sameeyey ilaahay gaaladii idinka jebiyey marka wax walba kownkan ka dhacaya horta qadar ilahay bay ku dhacayaan wax ilaahay mashii'adiisa iyo xikmaddiisa ka baxsani ma jirto wax walbaana xikmad bay ku dhacayaan labo wax walboo nagu dhacaya ama musiibada dhacaysa waa min addaakhil awalan dibaddu waxay u tahay farac bay waxay ka tahay musiibada gudaha ah markaad idinku fashilanteen ayaa gaalada laydinku sallidayaa
gaalada lama soo sallido dhulkaaga qabsata oo ku disha oo ku kala qaybisa oo ku kala gadata oo batroolkaaga iyo biyahaaga daldalata oo dhulkaaga u tashata lama keeno arrinkooda ilaa idinku aad horta fashilantaan oo isqabqabsataan oo iskhilaaftaan saasuu ilaahay leeyahay. taasuna waa qodob labaad, waa inaan masalada fahamno asal way si wax loo fahmo. sabab saddexaad, si looga baxo arrinta dhacday, dhibaatada dhacda ama musiibada dhacda, si looga baxo inta aan laga bixin waa in horta dhibaatadii dhacday laga toobad keenayo bannaanka laga noqdaa, laga taxallulaa. bilmacnaa maalan qof muslimaa dishay, xoolihiisana waa dhacday, gaf weyn baa kaa dhacay. inta aadan dhihin anigu nin fiican baan ahay oo masaajidkan geli oo waan toobad keenay, waxaa la rabaa dulmigii hore inaad meel saarto. shardi wey xoolihiisii anoo haysta yaan masaajidka gelaya laga aqbali ma. dhiiggiisii anoo weli qaba oo aan meel saarin, nin fiican baan ahay cimaamad baan huwanaya masaajidkan gelaya laga aqbali maayo. meel saar, toobadna keen. toobadda waxaa u shardiya kow ilaahay inaad u toobad keento oo ka nadaamooto, ka qoomamayso waxaad samaysay. xaq bani aadam hadday tahay, khaasatan xaq muslimna, waa inaad celisaa oo cafis ka dalbataa. taasuna waa qodob asaasi. marka wax ma saxmaan ilaa wixii hore la saxo, waxba ma saxmaya. taasuna waa shardi, waa inaynu fahamnaa. oo taasi waxay noo faa'iidaynaysaa muslimiinta hadda goobaya dhulkooda inay wax wanaagsan iyo nolol wanaagsan ay noqoto. dulmigii hore iyagoon sixin bay rabaan nolol wanaagsan inay helaan, oo dawladnimo helaan, oo nidaam helaan, oo amni helaan, nabadgelyo helaan. wixii dhacay weli meel lama saarin, faylkeediina lama xirin, ma suurtoobi karto. asaaska waa in la fahmaa. liyahlika man halaka can bayinah wayaxyaa man xaya can bayinah liyuxiqa alxaqa wayubطila albaail. ilaahay baail iyo xaqna isdhex galaan ma ogola. arrinkaas afraad waxa weeye wax kasta oo khilaaf oo muslimiinta ka dhex dhaca, isdil ha noqoto, khilaaf kale ha noqoto, isqaqabsi ha noqoto, waa in loo celiyo kitaabka iyo sunnada. fain tanaasactum fii shayin, wax haddaad isku qabataan, xukun iyo dhul iyo xoolo iyo waxay noqotaba, waa inaad u celisaan buu leeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka iyo sunnada rasuulka. wixii dhaca wain طaaئifataani min almu'miniina اqtataluu faaصlixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhra faqaatiluu latii tabغii. ma jiro qof marka muslim oo ka sarreeya kitaabka iyo sunnada. qof walba inuu qoorta u soo dhiibto kitaabka iyo sunnada. haddii la doonayo way dadka muslimiintahay ee dal degan ama dhul degan ee dhibaata haysataa inay ka baxaan hadday doonayaan, ama ay heshiiyaan oo dhibaatadoodu ay dhammaato, waa inay u qoor dhiibtaan kitaabka iyo sunnada. waa in laga helo inay u qoor dhiibtaan. arrimahaas horta waa arrimo asaas ah oo yacni loo baahan yahay marka hore inaynu wax ku fahamno. walaalayaal, waxaan u gudbayaa dhibaatooyin baa hadda caalam alislaami ka dhacaya, bal intaanan soomaaliya u iman. maxaa u sababa dhibaatooyinka dhacaya? awalan, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aad uga digay fitanta iyo kala tagga. qur'aanka iyo sunnada aad buu ilaahay uga digay. atafaruq waalfitan bayna almuslimiin aad buu ilaahay uga digay. qur'aankana ilaahay waa ku digay, walaa takunuu, ilaahay wuxuu leeyahay ha noqonina kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabun cadiim. ha noqonina kuwii markii ilaahay kitaabka siiyo diinta siiyey iskhilaafay oo kala tegey. nebiguna calayhi salatu salaam wuxuu yidhi laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin. war aniga gadaashay ha ku noqonina gaalnimo qaarkii qaarka kale laayo, qaarka kale dilo. arrinka labaad, ilaahay subxaanahu wa tacaala
wuxuu nooga digay khatarta arrintaanu ay leedahay ummadihii hore waxay dhibaato u keentay wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala afalam yasiiruu fi lardi war dadkaanu qur'aanka dhegaysanayaa miyaanay adduunka marin miyaanay dhulka eegin dawlado wixii jiri jiray ummado wixii jiri jiray qowmam wixii jiri jiray ee baaba'ay afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha ma waanay dhulka marinoo fahmin adduunka taariikhdiisu say tahay xuruub ahliya yacni civil war adduunka meelo badanuu ka dhacay ummado iskhilaafay oo baaba'ay baa jira oo ilaahay halaagay wamaa yacni ma halaagin wax kale ma halaagin ilaa tafaruqoodii kala tagoodii iyo isdagaalkoodii baa halaagay oo iyagoo cilmigii haystaba iskhilaafeen oo isku xadgudub ay isku khilaafeen miyaynan arkayn buu leeyahay ilaahay subxaana wa taala ma dhagayan waxba ka maqal فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور haddii marka aynu sheegno asbaabuhu inay yihiin walaalayaal waxa ku dhacaya ummad ama inaga ha noqoto ama walaalaheena kale muslimiinta ha noqotee waxa dhacaya inay tahay asbaab inaga ah asbaabtaas maxaa ka mid ah asbaabta hala idin soo dhowr xabaan idin ka soo qaadaya koow waxa weeye al-inxiraaf والمعاصي كاللحشة لغا ليحضو منهجك إلهي iyo diinta ilaahay laga leexdo asbaabta u horeyso oo dalalku la burburaan bay kamid tahay oo isu dilaan oo u baaba'aan oo ilaahay ugu soo salido dhibaato iyo qalaaqil waa koow arrinka labaad waxa weeye dhulmi markuu ummad dhexdeed ka dhaco oo ama xukuumadeedu ay shacabkeeda dulmiso ama dadka shacabka dhexdoodu iyagu isdulmiyaan ilaahay wuu baabi'iyaa dadka waa la rogaa dhalinyarada iyo dadka yaryari taariikhda ma oga ee namuujaj waxaan ka soo qaadanayaa Soomaaliya dalalkan carabta ayo hadda dhibaatooyin ka dhacay wax badan baad iyaga ka ogtihiin laakiin inaga ceebaheena inaan aad isu ogeyn inaynu isxusuusinana u baahan 1975 anigu waxaan ahaa arday yar oo dhalinyarada ardayda ka mid ah oo Soomaaliya jooga ku jira ololaha farbaridda Soomaaliya reer miyiga magaalada Jowhar baa joogay markaas waxaa dhacday kacaankii wadanka ka jiray ee cirka markaa maraya oo aan cidi ka hortagi karin in uu soo saaray qaanuun lagu tilmaamay xeerka qoyska arrintiisuna ama gundhigiisuna ay ahayd wax la yiraahdo rag iyo dumar baa dhaxalka kala leh ama kala duwan ma jiraan waxaa la yiri oo dawladda ay soo saartay in rag iyo dumarku u siman yihiin dhaxalka ma jiro baa la yiri thuluth iyo rubuc iyo sudus iyadoo lagu istihzoonayo aayadihii quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraan kariimka uu ku sheegay yusiikum Allahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين بوحى ليري مجره لا ثلث ولا سدس ولا ربع ولا جني مجرته علماء كعضي أو وحي تري أرنكاس هو منكر cid hadli kartaa ummadda Soomaaliyeed waagaas kuma jirin cid badan oo hadli karta oo afka kala furi karta oo oran karta waxaas waa dulmi ma joogin dadka intooda badan ama way isdhiibeen ama xiniyaha laga siibay dad culimaah baa istaagay oo diinta Ilaahay u qiirooday waxay yiraahdeen arrinkaasu sax maaha waa dulmi haddaan
projectorka hayo hadda sawiradoodii waan soo saari lahaa laakiin filinkan ay saarneen 10 nin oo ragga ka mid ah ayaa iyagoo ilaahay u ashtakoonaya tiirka la geeyay waa la dilay yawman waaxidan subax baa la dilay waan xusuusta cirku waa ooyay dhulku ma ooyin Soomaalidu ma ooyin shacabka Soomaaliyeed waagaas ma ooyin ma gilgilan talaaba inta leeg dulmiga kama sameey bal waxa ka daran in badan oo kamidi way daawanayeen daawasha loo tagay iskoola bulisiya meel la yiraahdo dhalinyarada yaryar ma yaqaanaane Muqdisho aqoone tiirka meel la yiraahdo dadka la geyn jiray halkaas lagu dilay 10 culimada ah subax Soomaaliyu ma gilgilan iyaguna way Ilaahay bay u ashtakoonayeen dulmiga lagu asiibay fi huduu iyadoo la aamusan yahay bay tageen ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلهي وحو يري ها لين إنه إلهي غافل كيهي وحد ظلمك الله سمينيو إلهي غافل كما هين وايهي واسو صعوتي كصعو إنك با هذا رئيس ظلمني دولة دي جرتي دادك هذه بيكوهوس نقط مر قبل كان بابي مر كان بابي مر كان عيلاشة كدوك مر كان ديجر جل دل ظلم بدنا دعي مقالوين للدمي لولا للدمي أدونا للدمي ما حاكسي ده شيء تنازع يكلا تقبى ظلمي كذا شيء تفرق وأسبابها كان حروبتا يدقالها ظلمي مركبتي وحاد عي التنازع أسبابه كمتاهي كلا تق يقار كلا إني قالها أفكذان حقوذا إتوبيا إن لتقوه إثيوبيا إن لا تقول سوق المستمان تم بلعبان تاريخ ذيان بين لجشيجين كن السجال بقول تضباطا السديدي أي بلعبتي دجال كي إثيوبيا الصومالية كدب بي بلعبتي تاريخ وقرنتها هيوات الله كن السجال بقول السجاشن كي ما بلعبان يكوي سجاشن السديدي سجاشن يلا بعض يكون اللحدي ما بلعبان Soomaalidu inay gaalay soo adeegsatay bilowday tanaazuc dhacay waxa bilowday xasabiya qabaliya reer in loo kala baxo hadana waa asbaabaha keena burburka bay kamid tahay waxa kamid ah amaanadu inay lunto idaa'atu al-amana nabiga kaleey salaam wuxuu yiri idha duy'at al-amanat fantadhir as-sa'a saacadi sug amaanadu maxaa kamid ah inay lunto kii wax loo dhiibaa inuu lunsado kii wasiir laga dhigaa inuu lunsado إلهي سبحانه وتعالى دولة أمانة له أو أن ظلمي لهين هدي قالت هاي بيرادين علماء إلهي وباقي له هدي مسلم يهين أو أي ظلم سميان أمانة حما سميان والله بابي إيابي يرادين علماء الإسلام نعم دولة قالها بقى تاقي لدتكو اسويدينيا ومحاد عي دولة قالها بعد السنة محاد عي قال لما إلهي سبحانه وتعالى قال لما كلية كما هلاقه مقالوينك إيا وضمضا وما كان ربك ليهلك الغرى بظلم وأهلها مصلحون إلهي وحو ليه إلهي قال لما كلية وما هلاقه مقالوينك هدي ضد كادو أيهين ضد عدالة فليا وقالوا دي عدالة فليان ويجريسا دولة دودو أذيك مسلم كالظلم بات سويس الصوماء مجريس الدولة دادو تاسونا وارن جرته وحاد عي تنافس على الدنيا وحان او ايمانيا مركا اسباب تخارجي اهان او ايمانيا ما كدا شيء تاس تي غداهيد وحا كدا شيء مركا الاسباب الخارجيه دولتي دبدها كو اني او عدوغا كوها كو قدريان مركا او اي كو ضمعان اللي عدوغا كو درسا العداء الديني والسياسي اما الدين اهان هكول عدو اهادان أما السياسة هان عدوها كلها هذانه إني كنت ضمعان إني كسفر قليا قرمي بلابطي مركا ظلمك السميسي أو أمانة حمان نقطي أو معاصي السميسي أو ربك أجي عاصدي أو إسخلافتي أو قبيل أكلا ججبتي أو أمانة دي أضيعضي أو الدنيا كجلستي دينتي اللودي أيام مركا عدوك يمي إنو كنت ضمعه إنك أو إنتا صدمي دعيسي
cadowgu inama soo damcin soo ma ogidin cadowgu inama soo damcin Soomaaliya Ethiopia ma soo gali kartay 1975 ma ku dhicin 76 ma ku dhacday maya kuma dhicin 80 ma ku dhacday kuma dhicin goormay bilaabatay markaynu nagu iskhilaafnay oo qaarkeen u tagay oo yiri kaalay garab isi dawladda Soomaaliya raba inaan burburiye qaranka Soomaaliya raba inaan burburiye xaqigii ma raadsanayaay markaas buu cadowga dibadda ay soo galay waxba yaa lagu marmarsiiyoon marka cadowga dibadda kan gudahaba ka horeeya oo dhibaatada marka dibadda waxay ku timi cadaa siyaasiya ama siyaasad cadawad ha u ahaadaan ama diin arrinka labaad ay u yimaadeen waxa weeye siraaca adduunka ka dhaxaya waxa laga yaabaa inaynu dhaxiyo u nahay oo u dhimanayno mararka qaarkood dawladaha hirdamaya baynu dhaxiyo u noqonayna waxa kale oo kamid ah sarwadeena oo la damco sarwadeena xoolaha iyo adduunka iyo nicmada iyo khayraadka ilaahayna siiyay oo aan garan weynay inaan tartiib u cunno oo aan si nabad ah u cunno aan garan weynay markaan garan weynay baa lagu soo fasaxay cadowga dibadda ah walaalayaal dadka Soomaaliyeed tusaalaan idin siinayaa dawladda la yiraahdo Malaysia waa dal muslim ah oo markaynu inagu xorriyada qaatay waxay ka mid ahayd dawladaha adduunka ugu faqiirsan wuxuu yiri nin Nobel ku qaatay arrimaha siyaasiga ah oo ka qoray oo gaala ka qoray wuxuu yiri waxay la mid ahayd Honduras iyo Haiti bay ka hooseysay Malaysia 50 sano ka hor xornimada markii qaadanaysay waxay ka hooseysay Ghana oo Africa West Africa ku taala maanta dakhligeedu wuxuu ka sareeyaa 7 jeer marka lagu soo laabo dawladaha aan sheegayno oo la isku daray sababtuna waxay ku timi markay iyagu dalkooda u tashadeen qiyaado wanaagsan heleen waxa asbaabaha maadiga ah oo la taaban karo kamida ilaa iyo waqtigii istiqlaalka dadkooda inay fakhriga ka saaraan oo khayraadka Ilaahay siiyo cunaan oo dhulkooda ka shaqaystaan job creation waxa la yiraahdo inay sameeyaan shaqo abuur dadka loo abuuro waxay leeyihiin 7 milyan iyo 4 shaqo ayaa la abuuray marka dadkeeda iyada loo fiiriyo waxay la mid tahay iyada oo Mareykanka laga sameeyay 105 milyan oo job laga sameeyay ka mid ah Mareykanka qof aan shaqeyn ma joogi lahaa hadii la yiraahdo maanta iyadoo unemployment laga qaylinayo 105 milyan oo job baa la create gareeyay marka ay dawladdu ugu badan tahay waxay tiraahdaa 2 milyan oo shaqo waana soo abuurnay bay ugu badan tahay waa najaxnay 105 milyan bay u dhigantaa oo Mareykan shaqo laga sameeyay Malaysia inagu Malaysia waxaan sarwada aan haysano waxay ku soo laabantaa 10 jeer bay ku soo laabantaa 10 jeer bay ku soo laabantaa Soomaalida maanta wada qaxootiga ee gaajada u wada dhimanaysa walaalayaal baddeena kaliya xeebta ugu dheer Afrika 3300 oo kiiloomitir waa xeebta Afrika ugu dheer kaliya hadaynu ka shaqeyna kaliya ayaa khayraadka Ilaahay siiyay ugu filan dhulkana looma baahna beerna looma baahna oo waa reserve xoolahana waa reserve United Nations hadda waxay leedahay waxa ka shaqeysta ilaa 1990kii waxa ka shaqeysa burcad badeed ma kuwan masaakiinta ay Soomaalida ay meelaha lagu sheegay kuwaas waa burcad badeed yar waaye burcad badeed waaweyn waxa weeye maraakiibta sharci darrada kaga shaqeysata xeebaha Soomaaliya ilaa 1990kii markii dawladeedu dhacday 750 according to the United Nations statistics anigu ma keenin United Nations kale 800 oo markab baa sharci darro kaga shaqeysta 20 sano Soomaaliya xeebaheeda oo ka qaata kalluunka ka gurta iyo shrimpiska iyo maxaan ku sheegay khayraad ku jira Yurub kaliya waxa lagu qiyaasay 300 milyan oo euro
barrier inay ka qaadato keligeed maaha Japan maaha Korea maaha Thailand maaha Brazil maaha wadamada kale iska dhaaf only EU oo dhahda deeq baanu siinaa Soomaaliya oo lagu adoonsado waxa meelaha taagtaagan ee shaqaalaha ah ee Nairobi iyo Muqdisho iyo fadhiya lagu adoonsado oo $500 baan ku siinaa bishii soo istaag halka stand up here la yiraahdo 300 milyan cash bay EU-du ka qaadataa ma soo celisaa 300 milyan maya ka soco khayraadkii marka anaga cuni weynay dadkan khayraadkooda cunay ee nabadda u cunay Malaysia kuma noola shacab kaliya oo waaxida walaalayaal waxa weeye waa muslimiin waa Chinese waa Indians waa saddex diimood waa muslim waa buudiyiin waa Hindus all together waa la cunayaa nicmadana waa la haystaa waxaanu imanayaa maxaa ka dhalanaya dhibaatooyinka iyo thawraadka hadda socda dadka qaar baa aad ugu faraxsan dhulka muslimiinta inay thawraad ka socdaan laakiin waa nadra gaaban way nadra aad u gaaban short sight way very short sight dadka muslimiinta ahsaan sheegnay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka nahiyay tafarruq iyo khilaaf wax ka daran ma jiraan bacda shirkiga kadib kala tag iyo isdagaal ummad meel degani ay samayso wax ka darani ma jiraan بعد الشرك ولا تكونوا من المشركين مشركين عن قلنا معاكم حاجه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تفرقوا حاجه إلهي وحو كان الشرك كذب تفرق يا كلا تقى إنه يهي مشكلة وقوين أو إلهي دتكنا يناي وحكالته للصعدة تفرقة وإن ليسدلاء مرهدي لا يسخلافه وإن ليسدلاء حبض ليسو قاطع ديقو ضاطع إلهينا ديق وحو كحجيي ديق إنه حق درميش أو قضاطه وحو كحجيي شركك إيضنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق dhulkeenna innaga marka waxaa ka dhacay wixii ugu darnaa labadii dembiye ugu darnaa bacda shirki oo ah tafarruq qabiil la isu dhaafay gaalo markaan isu adeegsanay qabaa'ilka Soomaaliya oo dhammaantood way adeegsadeen Ethiopia iyo Kenya way adeegsadeen qof Ilaahay u naxariistay maahane dad baa waxay isu malaynayaan maryahoodu inay u cadcad yihiin hebel baa adeegsaday Ethiopia hebel baa soo qaatay Soomaaliya let's speak guys true anga run hadal annaga ma maqnin mana aan dalka ka maqnayn dalkaan joognaa yaa waaye reerka aan Ethiopia soo adeegsan tell me yaa yaan mingisto soo adeegsan yaan meel soo adeegsan yaan hubka ka soo qaadan si qarankii Soomaaliyeed loo burburiyo yaa waaye idan Soomaalidu waa dambiile yaalbana markaasaan waxaan ku darsanay inta shir laynoo qabto in layna yiraahdo see xubnaha u kala qaybsanaa maanta waxaa akhrinayay joornaalka qosol oo oy gobol nin jooga oo madaxa wuxuu leeyahay dawlad Soomaaliyeed ma dhacayso mana sugnaanayso reerka iyagu haddaanay intaa helin what the hell you are talking about maxay tahay reerka iyagu haddaanay tahay dambiilaba tahay xukun waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad balaha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay you not other one it's not America it's not Europe it's not Japan it's not Kenya nor it's Ethiopia it's only Somalis who killed themselves وأيجا وأيدي شيء رنت معها والله بالله أنا أحين عيار أنت الصومالي إسكدي شيء إيا أنت إثيوبيا كدي شيء يا بلن
soomaali intay dishaa badan, soomaali intay laysaa badan, soomaali intay balaayo ku soo hogaamisaa badan. And today dalkeenni muxuu la baaba'san yahay? waa only our reason, annaga sababteen waay. qaar annaga ka mid ah $500 ay dalkooda ku iibsadaan, qaar annaga ka mid ah magac baa lagu yeelaya ku iibsadaan dalkooda, qabaa'il baa ku taageera. kaas keligiis nama iibsadeen. haddii aan qabaa'il ku taageerin miyuuna iibsan lahaa? keligiisna gadan lahaa, suuqa ma naga soo gadan lahaa? dad la gatay baan nahay, la iibsaday, suuqa waliba ugu rakhiisan adduunka lagu iibsaday. and still we are talking about. qol baan gelaynaa markaasaan odhanayna reer hebel isu keenkeena. idan walaalayaal, sabab aanay dadku iyagu isku samayn ilaahay subxaana wa tacaala cidna ma dulmiyo. thawraadkan iyo tafaruquna cidna uma aha maslaxo, cidna waddan dhexdiis uma aha maslaxo. tafaruq iyo isdil iyo dhiig uma aha. ummadda islaamku waa mid ay ku baaba'ayso nebigeedina calayhi salaatu wasalaam uu uga digay oo uu sheegay. laakiin su'aal baa imanaysa, sidee yeelnaa haddii dulmi uu dhaco? sidee yeelnaa? shareecadu waxay u samaysay waddo loo maray u samaysay. nacam, aan wax ka tilmaamo, wax yar aan ka tilmaamo. awalan, horta haddii tafaruq dhaco oo dalkii qaranku u burburo, nacam, saan sheegay dulmi baa dhacay oo macaasi baa dhacday. dawladday markay qaran inoo jirtay dulmi baa dhacay, ma diidayo. waataan sheegay, gobollaa la dulmiyey, qabaa'il baa la dulmiyey, dad baa la laayay, ummadaa la kiciyey. ma ignore garaynayo, mana diidayo, waa wax dhacay, xaqiiqo way. laakiin see loo saxaa way ka taagan tahay. macadow baa la soo adeegsadaa. ma etoobiya intaa un tagaa odhanaya kaalay dalka soomaaliyeed qabso, qaranka soomaaliyeed burburi? ma saasaa odhanaya? maya, saas looma saxo. sida loo saxayaa waxa weeye, kow, ummaddu waxay ku baaba'daa, ku hagaagtaa oo yacni lagaga ilaaliyaa tafaruq iyo khilaaf. kow, horta kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa in la qabsado. labo, in lagu kulmo shareecada islaamka in la dabaqo oo iyada la hirgeliyo. saddex, in madaxtinimada iyo ummadda qarannimadeeda in la ilaaliyo iyo dawladnimadeeda. nacam, annagoo dulmi ku jirnay oo dhibaato ku jirnay waxaanu ka liidanaa wadciga aanu hadda ku jirno. dawlad kasta oo wadadeenna martana, ama suuriya ha ahaato, ama ha ahaato tunis ha ahaato, ama libiya ha ahaato, ama masar ha ahaato, ama yeman ha ahaato, nafsal waday maraysa iyaduna. hadday marto wadadeennii, waxa weeye qarankaas ha daciifo, dulmi ha ku jiro, dhibaato ha ku jiro, isagaa dhaama fawdo iyo kala tag iyo dhiig iyo isdagaalid iyo qax iyo gaajo iyo cadow qabsada dalka oo u tashada buu ka daran yahay qaran inuu jiro walow uu dhib badan yahay. marka qarannimadana in la ilaaliyo oo madaxnimo iyo dawlad iyo kala dambayn ay jirto, dawladnimo ay jirto. walaalayaal, dawlad yacni la'aan bay dhaantaa. annagu waxaan nahay jiilkii ku soo koray oo ku awayban ka dambayna. odayaashii naga horreeyeyna waa naga horreeyeen oo way soo arkeen. waxaanu aragnay dawladnimo iyo macaanka ay leedahay. saas darteed baan waxaan meesha ordaya iyo waxaan socda magacay doonaan ha sheegtaan, diin ha sheegtaan, islaam ha sheegtaan, wax kale ha sheegtaan, ayaanaan ka aqbalahayn dawlad la'aan iyo qaran la'aan iyo ummadnimo la'aan wada jirta baan wax ku keenaynaa. kana ka aqbali mayno. we're not going to accept that. dawlad xataa daciifa baa nooga roon oo qaran ah oo ummadnimo ah. anigu naftaydaan tusaale ka soo qaadaya. nacam, xumaanta aan ka sheegay dawladnimadaas baa haddana waxaan dareemayaa fakhriga ay lahayd, wanaagga ay lahayd dawladnimo iyo qarannimo dalkaygii markaan joogay 1972. tusaalayaal haddaan usoo qaato naftayda, that is example way. dad badan ay la midna waa jiraan. tuuladeedii aan ku dhashay qandalaa la yidhahda, gobolka bari ee soomaaliya ka mid tahay, waxay ka fog tahay caasimadda soomaaliya 2,000 oo kilomitir bay ka fogtahay oo u jirtaa. in that tuuladaas, magaaladaas, degmadaas yarta ah ee populationkeedu 10,000 aanu markaas ka badnayn, 1967, 68, 69, 70 ayaan elementaryga ku dhigtay. waxaa ku yaala cusbitaalkii yaraa, waxaa ku yaala police stationkii, waxaa ku yaala iskuulkii, waxaa igu yaalay biyihii oo aan ku cabaya, waxaa igu imanaysay warqadda walaalkay uu ka soo diro Yurub, salkeeda uu ka soo diro, I was getting in the post office in Qandala baan ku helay.
today 40 sano baa konton sano laga joogaa maanta Hargeysa cidna ma ugu diri kartaa warqad you can send it in the post office ma ugu diri kartaa boosaas ma ugu diri kartaa qofna warqad waa simple thing service oo dawladnimo leedahay waa very simple service guryaha waxa idinku soo wada dhaca waraaqa idinku soo wada dhaca check baa ii soo dhacay bill baa ii soo dhacay kana ii yimi you are not going ma qiimeynaysan arrimahaas waxa ay leedahay because dawladnimo iyo qaran baa jira meesha nidaam baa jira system baa jira keenina waa burburinaynaa we don't need it ma rabno inaan sameeyno ma rabno inuu jiro waxaan ilaalinaynaa traffic light baan ilaalinaynaa wadamada kale waxaan ilaalinaynaa traffic light-ka stop waa istaagaynaa innaga soo maaha dhiigaan ku tubanaynaa qaliilkan ku tubanaynaa dulmigaan ku tubanaynaa baba bina dalkeena waa duugaynaa isagoo nool baan duugaynaa ma ogolin inaan is ogolaano ma ogolin aan ku wada noolaano magaalada aan ku wada noolaano ma ogolin kuwa hadda ku dagaalamaya Soomaaliya ku dagaalamaya ee ay koonfurla degi kari laada ee maalin walba oranaya waxaan ugu shaqaysanaya United Nation iyo organizationno iyo dullaaliin adduunka ka kala yimi meel kasta habar kasta wayna baayacaysa adduunka joogta mujrim kasta adduunka jooga Soomaaliya u baayacaya maanta wax kasta iyaga soo shaqo tagaan kii shaqo waaye laqad hazulat buu yiri ninka saarka hazulat wa bana huzaluha wasamaha kullu muflisin waxa weeye rida caatada ah inta caatowday oo caatan noqotay baa araxdeeda waxa taabanaya mid kasto aan shilin haysan oo farmadow araxdu saa u taabanaya wuxuu leeyahay neefkan ma gata shilin ma haysto hal shilin iskuma furto laakiin waxa kan caata say u noqotay ayuu la holinaya inaga waxa ina holinaya cid kasta inuu madax noqdo Soomaaliya waxa holinaya nin kasta mid kasta suuq joog ah oo kuwii ahayd xabsiga in lagu wada guro ama ummadda laga wada qabto meel laga istaajiyo bay ahayd waxa ma doonaya maanta wasiiro inay noqdaan dawladda inay noqdaan oo nagu baayactamaan magac Soomaaliyeed ku baayactamaan annagana waa u sacabtumaynaa xafladaan u qabanaynaa lacagaan siinaynaa war maxay tahay aawo ummadaas marka waxa leedihiin ilaahay baa idin dulmiyay inaan ahaano dawlad la'aan ilaahayna ma dulmi marka qaran baan meesha ku haysanay iyadoo saasa waa in la saxaa marka in la burburiyo maaha in la saxo bay ahayd ma in la burburiyo oo aan konton sano dib u noqdo oo aan boostada qandare ay ugu iimaanaysay maanta ay noqoto caasimadii dhamayd la idin sheegayo nothing wax ka jira ma jiraan muqdisho waad maqli jirteen ma tagteen annaga tagnay weydiiyo waagay jirtay ma jirto magaalo la yiraahdo muqdisho ma jirto waa magac xaafadaad maqashaan warshada baastada boondheere hodon مش عارف ايش دق في ركتاده وحجرا مجران ودنبس وي يا دنبس كدي كو هدا جوجه oo ku dagaalamaya qaar muslimiinimo iyo wadaad sheeganaya diin ilaahay darteedina waxaan ilaahay uga cudur daaranaya in magaca diintiisa lagu sameeyo waxa soo kale ilaahay waa uga cudur daaranayna waxaan ilaahay uga cudur daaranaynaa Soomaalinimo iyo sharafteed in lagu sameeyo waxa dawladnimo lagu sheegay ee baabaas ee gadashada ummadda ee wiilka yar ee United Nation organizationadeeda jooga Nairobi ay gacanta ugu yeeraan oo u yeeriyaan oo u dictate garayaan waxay doonayaan waxa soo kale in Soomaalinimo lagu sheegana ilaahay baan uga cudur daaranaynaa ya way okay maxay ku ansaxaysaa waxa kan akhayo ikhwaani marka fawda inay timaado oo tafarruq yimaado qaran burburo xal maaha xal waxa hadda caalamka islaami meelihiisa qaarkiis iska socdana wadadu ku socdo waa wadadii Soomaaliya waxba ku gaarin ma waxaan rabnaa marka wadamada kale inay saas oo kale noqdaan ma uguma naseexayn karno laakiin isla mar ahaantaas madaalimiinta iyo nimanka saa u galay dulmiga saa u galay baan taageeraynaa oo aan leenahay ha joogaan ma wada u dhaxaysa jirta oo wax lagu saxo ma ilaa in dil iyo fawdo wax lagu saxaaba ma taa kaliya wax lagu saxaa yaa yiri saas there is no other solution ma jiro solution kale imma maut wa imma fawda labadaas sunan kala doorano miya ama dictatoriyo iyo baaba iyo dulmi ama fawdo iyo halaba baabado aniga ha gubato gadaashay sida hadda nimanka xukaamta qaarkood ay leeyihiin xarabta masaasa ama keenni horeba uu yiri masaasa maya wax u dhaxaya jira waxa u dhaxaya waa maxay
وحوية أولا إخلاص ضدك هرتا ودن كاله ولا ريان قال يا مسلم وحيهين إلهي سبحانه وتعالى أمض وحيدة وما هجاجية هداني ضل كذا الدين تن إني وحقه بنيس إخلاص عني وين دين تمركات قصة تكتو ضل كيسة هداني قفكو إخلاص وين وحاول قبنكر وحاول هجاجي كران إتمينيس وحوي هدي الرب الصوماليين يكبح هذا ديواتدان أما ضد كان يكبح هذا وإن له لا ضد الليدر شيبة والنظيفة وأمضوا الدنيا إنه واحتران أمضوا الدنيا إنه واحتران أنا هين ضد بيستين يكوب شاه لقوا يبسدوا إن مقع الله أنت الله صمي لبو وحلو بها هي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر قفك الظلم السمي هي حكامة الظلم السمي نيسا ضدك هي شعبك هي أمضة هي علماء هي ضدك وإني أوران كران وروحها سوا ظلمي ها waxbaa u dhaxeeya in la dagaalamo iyo in wax la sheego wax la saxo dawladda dimuqraasiga waxa aad leedihiin waad garanaysaan waa la xisaabtamaya xaakimka waa la xisaabtamaya waxbaa la joojinaya waxaas waxa lagu gaaray dadaal iyo kifaax meel cid la laga ma helin marka inaga ma waxaan u dhaxaynaynaa in imma inaan sacabtumayaal noqono sacabtumayaalkii laftigoodii baa maanta waxay rabaan anaga inay yiraahdaan waxbaan hogaaminay maxaad hogaaminaysaa shalaba sacabtumada ay dulmiga u sacabtumaysaa maxaad hogaamin kartaa أمس كنت صفق ما تقبل كرتها ما قبل كرتيد nothing مركا وحاول حياة وحوي وانا قال الله فرو منكر كان الله رهيبو كيسيني ماذا الله يشو سيدا علماء دي قدمتي يددك قدمانيا كلمة حقا هنا يرهدان وانا تي النبي عليه الصلاة والسلام ونفري أرنك صدحاد وحوي صبر بالو باي نعم صبركم محل با ها صبركم حل مشكلوين كبضن بو حل وياي ها وهدي قف كان عنيق حمان يقول سمايو أنما إن أنتيو كلا أما ميت كدران كوسا ما يابا ما هدي دبعت كلا وسوينا صبرا أما سي وجه وأنا أكسن حقيقة أنكو جارا صدح وإن إصلاح ذات البين أجرا أو أجرتا دبوا هشيسين طبعا دبوا هشيسين بحال ولا يلا بعتصر وحنا لكم أولنا أنا دولة دبوا هشيسين what kind of دبوا هشيسين what kind of دبوا هشيسين هذا دبوا هشيسين بينوا يبلوا حكم الجيران saan sheegnay dadkii muslimiinta ahaa ee dhibka la marsiiyay irdigooda lagu xadgudbay gabdhahooda la kufsaday xoolahooda la dhacay dadkooda la laayay qabaa'il Soomaaliyeed oo hadda isku sheega 4.5 baanu nahay baa sameeyay they have done that gabdhay kufsadeen Soomaaliyeed aan sameeyay Ethiopian iyo Kenyan iyo qeyrkiisa aan sameeyay dad bay laayeen way xabaaleen way dumiyeen lagama xisaabtay dib u heshiisiin baa loo leeyahay what kind of dib u heshiisiin what kind of dib u heshiisiin mujrimkii meeshu way soo tagay jaa'izu barabaa wuxuu leeyahay 20 wasiir haddaan la isin waxa ma dhacayaan waa mujrimkii soo dadka laayay wali lama xisaabtami lama dhihin adigoo kale waxay ahayd xabsin taraqa lagu dhigo waxaad sheegaysaa halaysiyo wasiirnimo halaysiyo وزيران وقيبينينا وزيره يحل دبانه بانو قيبينينا سيلا هيكو قستو سيلا لا يمكن صح معها أرنك لو حويه وإلهي سبحانه وتعالى ودقي إن لسميسته نظام الآن وحبكم الصعنيان والنظام هكوه الشيء أمد ميل وذا الدقن حال كلام يالنيس أما إسلام هشكتان أما ودادها هشكتان أما وحكا لهيدين أخريان قولك كليجيد ميشان قادنا يسمى جرتو وقاذا wadaada xisbi hebel baan nahay nala yiraahdaa annaga ilaahay magaciisa ku hadalna wadanka Soomaaliya annaga kaliya xukumayna wax dhaadhacaya maaha wax soconayana maaha wax dhacayana maaha dad Soomaaliyeed ummad Soomaali la yiraahdaa meeshaan ilaahay dajiyay ilaahay baa u qoray dalkaanu u qoray qayb dhulkiisa intaanu uga siiyay ma ku heshiinaysaan mase sidaanaad ku jiraysaan intaas un baa idintaan ما كوه شينيسان او ترتيب ما هو وضعونيسان ما اهل السنه والجماعه لا يراهدايو waxa kale waa inay banaanka u baxaan ma anaga waxaan la yiraahdaa magac hebelo waxa kale waa inay banaanka u baxaan ma anaga waxaan la yiraahdaa dawlad hebelo waxa kale waa inay banaanka u baxaan that's not going to work my guy it's not going to work ma shaqaynayso ma jirto ma meel lagu ma gaarayo hadaanay heshiin meel lagu ma gaarayo dalkan waa la wadaagaa qofkan meel uu ka aado male hadaad banaanka u turtana gaal kale ku soo adeegsanaya cid walbaana way soo adeegsanaysaa haddaad adigu cadaadiso banaanka u turto marka inay heshiiyaan waxba kama dhaxayaan waxaan nihaayada ku soo khatimaya walaalayaal
waxaan ku soo khatimayaa innaga waxaynu u baahannahay inaynu dib u fikirno Soomaali hadeennuna waxaan ugu yeerayaa walaalahay iyo nafteydaba hadday yihiin wadaadada islaamiyiinta ah ee dhulka Soomaaliya kuwa jooga iyo kuwa taageersan wadaadadii mawduucan igu qoray kollay waxaan u malaynayaa inay hadda dadka Soomaalida ah markii arrimahan oo kale laga hadlo shayga ka hadashaba qolo xanaaqaysa waan ogahay I do not care that I don't care haddaan iraahdo waxa la wado islaamnimo maaha kuwa xanaaqaya waan ogahay waxaan ogahay islaamku la dagaalamay haddaan iraahdo waxa meesha ka jira dawladnimo maaha wax dawlad lagu sheegana maaha kuwa kale ogahay xanaaqaya haddaan iraahdo kuwa gobolada isku sheegay goboladii ay joogeen bay waxba ka qaban kari waayeen madaxweynaha goboleedka kada baa la yiraahdaa gobolkiisa wax ka qaban kari waay do you know billahi alaykum ceebtooda inay aamusaan weeye maalin dhaweed waxaan tagay Malaysia waxaa jirta gobol yar oo laga gooyay oo Malaysia laga gooyay oo dadka muslimiinta lahaayeen oo la yiraahdo hadda Singapore waad maqasheen soo maaha waad maqasheen Singapore ma Singapore ma taqaanaan masaaxadeedu dhul ahaan intay tahay please dadkina juqraafiga iyo thaqaafada caalamiga ah in Soomaalidu waa wada siyaasiyiin do you know waa 624 kilometer square waay waddanka dhan oo lagu sheegayo la yiraahdo Singapore ma taqaanaa Soomaaliya meesha ka weyn Singapore dawlad ahaan waxa ka weyn gobolka Banaadir iska dhaaf Soomaaliya gobolka Banaadir just gobolka Banaadir baa wuxuu ka weyn yahay dawladda adduunka dawladaha ugu qanisan kamida ee la yiraahdo Singapore gobolka Banaadir baa ka weyn masaaxa ahaan iyo dhul ahaan maaha Soomaaliya oo dhan maaha koonfur oo dhan maaha shabeellooyinka iyo Banaadir maaha just gobolka Banaadir baa ka weyn isaga ka biyo badan isaga ka beero badan isaga ka xoolo badan 624 kilometer malaha biyo malaha oo baad malaha oo xoolo malaha oo waxay keensado petrol malaha biyaha dibadda looga soo daabulaa still wallahi billahi waa ceeb adduunka يعني عيب ويه إلهي عندنا مظلم وهذا كان يدين كوب بالعبية سنغافور 2010 international transparency waxay ka soo gashay number ka saddexaad adduunka ayay ka soo gashay transparency corruption la'aan waxay la tartamaysay Denmark iyo Sweden iyo Finland iyo Norway iyo New Zealand bay number 3 iyo number 4 kula tartamaysay Soomaaliya oo muslimiina oo sunna oo shaafiiciya waxay ku jirtay the last in the list 198 dawladood tan ugu dambaysa corruption baba tuuganimo qashin markaas waxa rabtaan Ilaahay hadiyad inuu idin siiyo in yiraahdo hooya dawladnimo iyo ammaan iyo nabadgelyo iyo dal hooya that's nonsense waxba kama jiraan sharciga Ilaahay kuma jirto kitaabka Ilaahay kuma taalo waxba looguma hayo Soomaali kitaabka Ilaahay wax looguma hayo dad tuuga waxba looguma hayo dawladnimo looma hayo qarannimo looma hayo dad tuuga waxba lagu soo gaareen looma hayo iyo kuwa taageeraya dabana shaqeynaya u saabtumaya PhD holders masters baa waxay u saabtumayaan juhalo wadankoodii baabi'inaya iyagii bay bariyayaan iyagii bay tuugayaan iyagii bay leeyihiin safiir iga dhig wasiir iga dhig hebel iga dhig muxuu ka dhigaa he's nonsense waxa weeye marka walaalayaal ummadan haday doonayso inay wax noqoto anigu hal shay baan u hayaa oon ku soo khatimayaa inta kitaabka Ilaahay aan ka garanayo ama inta aan khibrad ka arkay adduunka inta aan marayay walaalayaal waxa soo maray jaaliyadaha Soomaaliyeed ee diasporada ee adduunka jooga meel aanan u tagin ma jirto
inta aan ogahay waxa ii dhiman New Zealand iyo Australia kaliya Europe oo dhan Africa oo dhan North America oo dhan Soomaali meel ay joogto soo maray warkeedina waan idin hayaa waxa xagga idinka jirana gudaha idinka jirana warkeedii waa idin hayaa الرائد لا يكذب أهله بين إذن شيء ما والله الذي لا إله غيره إننا بين إذن شيء كرين هدي اللي يراهو جودها الصومالية حدا ضد كيسكو هايستا وأغنى لبا فاكشن با كونفورت إسكو هايستا لبا ميلادو كلا قبول الدجان حدنا وحكجرا نسبيا حوجا نبتقليو إيه أمان إيه حوجا بكجرا hoos markaan u soo degno oo dhinaca hoose nimaadno dawladnimo ka soo socota been way waxba kama jiraan islaamnimo ka soo socotana wax daacadnimo oo ka jiraan ma jirto runtaan idin sheegay wallahi alladhi la ilaha illa ana been idin sheegay mana been idin sheegi karo diintaydana inaan been ka sheego uma soo fariisan meesha waxa weeye marka dadkiinan diasporada anu waxaan idin leeyahay in allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ummadi haddaanay isbedelin ilaahay xaaladeeda ma bedelo isbedel diyaar ma u tihiin haddaa isbedel diyaar u tihiin xaaladiina ilaahay waa bedelaya taas waa qodob isbedela oo kala noqdo horta taageerada dadka aan taageerada mudnayn oo siinaysaan beenta laydinku sheegayo website-yada iyo hadallada iyo telefoonada waanu samaynay waanu qabanay waa soo socota halkaanu ka wadnaa waxba meesha idinkama jiraan I'm telling you the truth wax idinka jiraan ma jiraan meeshaas haddaad wax qabsanaysaan wax qabsada oo isku tashada taas waa qodobka labaad waxa weeye meesha aad joogtaan iyo dalalka aad ku nooshihiin iyo xaaladaha idin haysta iyo caruurtiina iyo ubadkiina gaangiska noqonaya iyo caruurtiina iskuul la'aanta ah iyo danihiina dayacan siya priority-ga anu taasaan idin leeyahay priority-ga siya reer Minnesota hadaatiin Minnesota waa meesha ugu badan yihiin Soomaalidu diasporada London ka dabo waa meesha ugu badan tahay danihiina ka tashada reer Minnesota ahaan anu taasaan idinku naseexaynaya caruurtiinan say iskuul u helaan af Soomaali say u baran lahaayeen say u xifdisan lahaayeen diintooda iyo dhaqankooda iyagoo halkan jooga Mareykan ah say u xafidan lahaayeen saa idinku u deganaan lahaydeen saa wax u baran lahaydeen saa isugu duubnaan lahaydeen saa idinku u dhaqmi lahaydeen idinkoo muslina taas ka shaqeeya 11 kilomitir 11,000 kilomitir dalka idin jira taararka laydinku soo sheegayo beenta aan waxba ka jirin walaalayaal priority-giina labaad ama saddexaad ama afraad ama shanaad ka dhiga anu taasaan idinku la talinay dadkiina makhaayadaha fadhiya odayaasha makhaayadaha fadhiya oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeynaya oo caruurtooda gaangiska noqdeen shame on you shame on you shame on you shame on you caruurtooda gaangiska noqotay oo aan ogeyn iskuulkay dhigtaan aan garanayn oo af Soomaali inay xataa ku hadlaan aan garanayn oo Starbucks-ka intuu fadhiyo wasiir helal ma la horeeyay oranaya iyo xisbi helal halkaas uu ka dhaxay oranaya shame on you ka shaqay ilmahaaga waajibkooda ka shaqay ilmahaaga horta iyaga ka dhig dad muslina oo wadankan degan oo wax ku barta oo nafle oo Soomaaliya ka dhig wallahi billah waxaan garanayaa niman ka shaqeynaya oo leh Soomaaliya wax ka dhigaya Soomaaliya wax ka shaqeynaya Soomaaliya wax ka yeelaya leh oo London fadhiya oo Minneapolis fadhiya oo Melbourne fadhiya oo Nairobi fadhiya oo Johannesburg fadhiya kullu waa Soomaali oo fadhiya oo aan waxba ka qaban karin Soomaaliya caruurtiisi xaaskiisi reerkiisi diintiisi mas'uuliyadiisina dayacay bulshada Soomaaliyeed ilaa joogta maxaad u qabataan I'm asking you maxaad u qabataan ma isku duubantiin wax ma isweydiisaan dalkan 100,000 bad magaaladan ku joogtaan maxaa xuquuq aad qaadataan American system wuxuu idin ogolyahay xuquuq badan maxaad ka qaadataan waxaad u kala qaybsantihiin faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel what the hell you are doing so meesha ka soo cararteen ma soo idinku cagcad ma soo gelin soo idinku cayra ma soo gelin ma dad noqotaan oo dalkiina markaa hagaajisaan ma dad noqotaan walaalayaal marka dhageysta billahi alaykum sheeka baraleedna in loo iman billahi alaykum umadana yaan la dhumin billahi alaykum
ilaahay baan idinku dhaariyey ilaahay ha laga boqo soomaaliya ilaahay ha laga boqo ilaahay ha laga boqo haddaynaan isbedelin wallahi alladii laa ilaaha khayru inaan wax isbedelihin xaaladdeenu inayna isbedelayn anugu warkayga intaasaan idinku soo gabagabaynaya idinkana soomaaliya idinkaa wax ka dhigi kara haddaad doonaysaan inaad dawlado badan baa adduunka dibadda laga dhis anigu waxaan hal shay baan idin akidayaa dadka halkaa wax ka sugaysaan wax idinma soo wadaan wallahi inaan wax idin soo wadin wallahi inaan idinka fikerayn wallahi balahaad ku dhimateen kuwa kale waddaday soo hayaan saxaraha libiya ku dhinteen badaha talyaaniga ku dhinteen qaxootiga kenya ku jiraan malaayiin yaa ka fikeraya ii sheega kuwa gudaha ku jira ma ka fikerayaan kuwa xamar ku dagaalamaya ma ka fikerayaan diinta ilaahay baa been laga sheegay war cid waxa u qaban qofka soomaaliga muslimka waxa u qaban haddaadan wax u qaban karin haddaadan quudin karin haddaadan tacliintiisa wax u qaban karin agoonkiisa haddaadan dayeeci karin war adeerow ha qaxinin war adeerow ha dilin war adeerow ha baabi'inin war adeerow dalkiisa ha ka qaxinin beertiisa ha ka kaxaynin